Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waxaan ku qabanayaa shir saxaafadeed aan kaga hadlayo cuqaasha iyo waxgaradka beesha Faqashini ee lagu xidhay magaalada Laascaanood ay xidheen maamulka Khaatumo. Waxaan u aragnaa xarigaas inuu yahay cadaalad darro, inuu yahay dulmi loo geysanayo beesha Faqashini. waxaa la yaaba in la xirxiro odayaal aan waxba galabsan, wax dembiyo ay leeyihiin ayan jirin, iyo wax lagu sababeynaya toona ayan jirin, in la xirxiro xabsiga loo dhaadhiciyo oo qaarkood dhiigkar iyo sonkorba ay qabaan, 100 sano jirana ay yihiin qaarkood. waa arxan la'aan iyo damiir la'aan in la xidho oday 100 jira oo caaqila oo sonkor iyo macaan qaba oo aan caafimaadkiisu wanaagsanayn, in haddana xarig si kibir ah loo xidho wax damiirka bini'aadanku uu qaadan karo maaha. waxaa nasiib darro ah in la yidhaahdo wiil yar oo ka soo fakaday ciidamada Somaliland baa magaalo dhan rasaas loo hogwinaya oo odayaashoodii iyo waxgaradkoodii loo xidhaya. waxaan u aragnaa inay marmarsiyo meel awalba la rabay reerkan meel loo soo maro loo marmarsiyoonayay. wax arrintaas beesha reer Faqashini ay u dulqaadanayso ama ay yeelayso maaha. waxaan qabnaa horta inuu odayaashu bar xorriyadoodii helaan, kabacdina dhacdadan dhacda ee foosha xun in wax layska weydiiyo, dadkii falkaa geystay foosha xun in tallaabo laga qaado. waxaan ognahay dhismihii maamulka Khaatumo in beeshan lagu dulmiyey, in wixii ay xaqa u lahaayeen ayan helin, inaan la marin mudnaantii ay mudnaayeen, in madaxweynihii loo diidayo, madaxweyne ku-xigeenkii loo diidayo, ra'iisul baarlamaankii loo diidayo, taliyayaashii ciidamada loo diiday, oo intaaba ay been isku koobtay. markii halganka lagu jirayna waxaanu qabnaa beesha Faqashini in suldaankeedu geed dheer iyo geed gaabanba uu u koray siduu uga madhi dhalin lahaa in maamul la helo deegaanku leeyahay, inuu hawiye qarash ka soo qaaday iyo hub iyo lacag iyo ciidan iyo wax walba uu ka soo qaaday. taa abaalgudkeedii wuxuu noqday in waxgaradka beesha oo wax dembiya aan lahayn la xidhxidho, xabsiga lagu guro. waxaa kaloo la yaab leh oo aanan annagu marnaba qaadanayn, ninka dhulbahantee Somaliland ka soo fakada xarig la xidhay iska daaya, casuumaad iyo xafladaha loo sameeyaa, aargadaa la geeyaa oo lagu wareejiyaa. ka Puntland ka yimaadana sidaa iyo si ka daran baa loo soo dhoweeyaa. war wiilka yaree ka soo cararay ciidamadii Somaliland ka soo fakaday ee gurigiisii yimi in hub iyo rasaas iyo suugag lagu weeraro, anigu waxaan garan maayo ujeeddada laga leeyahay. wax beeshan ina aqbali karto maaha. waxaanu ka codsanaynaa maamulka Khaatumo sida ugu dhaqsaa badan inay odayaasha iyo wiilkuba xorriyaddooda u helaan. waa dulmi. waagii Cabdilaahi Yuusuf uu meesha qabsaday, Laascaanood ku soo duulay u qabsaday, baa dhacdooyinkan oo kale la mid aan la kulannay oo odayaashayadii la xidhxidhay, dhallinyaradayadii la xidhay. waxaan u malaynayaa waddadaas buu maamulkana qaaday oo u hayaa. anigu waxaan ahay Daawud Cashuur oo Warsame, waxaan ahay guddoomiyaha guurtida Habargedir ee North America, waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka Tala Wadaag. haddaan odayaashaas sida ugu dhaqsaha badan xornimadooda la siin, codkaygu meel dheer buu gaadhayaa. beesha hawiye oo dhan baan gaadhsiinayaa, waxgaradka hawiyaan gaadhsiinayaa. markii horena awrkaana lagu kacsaday oo waana lagu maxaabsaday, oo meelaan waxba nalooga oggolayn baanu hantidayadii iyo xooggayagii iyo muruqayagii aanu gelinay oo aanu u gadoobownay oo aanu tolkaya qaarkiis ku kala dhimannay.
maantana waxay noo caddaatay wixii anigu aan horeba uga digay ee ahayd inuusan dhulbahanta waxba u ogolayn Faqashini inuu waxa uu maamulka u samaysanaya uu rabo inuu ku caburiyo ama ku cadaadiya ay ugu horeyso beesha Faqashini horaan dadka ugu sheegay wayna caddahay wayna caddaatay waxaan qabaa markii hore waad khaldanteen oo waydin seegtay waxay idinku seegtay inaad saddexda kursi ee ugu sarreeya mid ka mid aad beeshan ku magacowdaan kulleyba manfac iyo manaafac wuxuu leeyahay idinkaa qaadanayee inaanu magacuyaal noqonno si aad sawirkaa uga gadaan dadka kale iyo adduunka way noqon weydo oo idinka hoos baxday mar labaad baad waxaad gelaysaan jariimad kale oo niman odayaal oo aan waxba galabsan baad xabsiga u taxaabteen kuwiinana inaad xaflad ku soo dhoweysaan oo aad argada ku soo dhoweysaan oo aad damaashaad ku soo gelbisaan oo aad ka dhigtaan hero idinka yimi halkaa ninka Faqashinayna inaad gurigiisa ku weerartaan oo aad suuq u adeegsataan oo gurigiisii burburisaan oo aad xaafadihii iyo maatada iyo carruurtii rasaas lala dhaco waxaan u malaynayaa waxaas wax cadaalada oo la qaadan karayo maaha awalba waxaanu lahayn kuwa meelaha taagtaaganee Faqashiniye la leeyahay waxbay maamulkii ku jiraan waxaanu u arkaynaa sidii maalintii hore loogu maxaabsaday awrka loogu kacsaday in maantana sidoo kale awrka loogu kacsaday laakiin ma aana filayn in odayaashii waxgaradka beesha la xidhiidho waa nasiib darro waxaan halkan ka caddaynayaa in beesha Faqashini lagu xadgudbay oo mar iyo lababa ayan ahayn xadgudubkaasi in awrka inta lagu kacsaday oo magacuyaal laga dhigtay inaan haddana maamulkii waxba laga siin mar labaad iyagaan waxba galabsan in la soo xidhxidhay oo xabsiga ay hadda ka buuxaan odayaal dhikar iyo sonkor iyo macaan qaba oo boqol jiraah iyo waxgaradkii beeshoo dhan intaa dhacday loogu tegey in la soo xaabiyey oo la xidhxidhay sababahaasoo dhan waxay u dhacayaan oo dhulbahanta uu samaynayo oo uu ugula kacayo dadka walaalahooda ehelka ah ee la deganaa intaa waxay dhibaatada intaa lagugu geysanayaan waa arkiwaa weeye waxaan codsanayaa oo adduun weynaha ka codsanayaa in arrintaas il gaara loo yeesho meeshii aan gaadhsiin karana waa gaadhsiinayaa waxaan ogsoonnahay haddaanu nahay beesha Faqashini nimankii Somaliland ciidankiisa ka tirsanaayo dhulbahanta inay Yogoori joogaan oo yimaadaan inay Tula Samakaab yimaadaan inay Laascaanood lagu soo dhoweeyo yimaadaan kaayagu wuxuu galabsaday baanu garan la'aana